wardegdega Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii hore ee Somaliland ayaa go'aan ku gaaray inuusan dib dambacagaha u soo dhigin garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada Hargeysa kadib wixii shala ku dhacay. Waxaan soo gudbinaynaa arrintan oo waji cusub yeelatay. Sidoo kale waa sidee xaaladda guud ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada Somaliland. Kacdoonka bulsho ee ka dhashay carqaladayntii lagu sameeyay safarkii uu Muuse Biixi kaga baxayay garoonka diyaaradaha cigaal maalintii shalay ahayd. Cuqaal horle oo hadashay bulshadii oo wari kacdoon abuuraysa wasiir hore Buuni oo hadlay arrimo badanna banaanka keenay. Macluumaadkii ugu dambeeyay ee arrimahan ayaan soo gudbinaynaa balse ugu horeeytii daawada ka aragti dhiibo. Go'aanka uu qaata Muuse Biixi يعني muxuu Somaliland u dhimi karaa. Sidoo kale waxa daawad doontaan oo aan idin haynaa wasiirka beeraha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu leeyahay xaaladda ay ku jirto Somaliland ka fursan mayso inaan anigu baxo ee tago si aan arrinta u xalliyo. Qoraal yaab luhu qora waxaan soo gudbinaynaa Maareeye iyo sidoo kale arrintiisa. Qodobo kalena waan idin haynaa laakiin ugu horeyntii ka aragti dhiibo go'aanka uu qaata Muuse Biixi iyo Maareeye hore xaggan tagaya si aan arrinta u soo xalliyo. Farniinta meel dheer gaarsi halkan ku soo biir. aynu ku bilownay saaxiibayaal xaaladda guud ee deegaanada Somaliland ayaa ah mid qasan dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay tan iyo markii ay soo baxday xogta ah in Muuse Biixi arbushaad uu kala kulmay madaarka diyaaradaha cigaal ee magaalada Hargeysa isagoo doonayay inuu u safro dalka isu taga Imaaraadka Carabta. wixii dhacay waxay ahaayeen wax iska cad iyadoo kaamiraduhu waa CCTV-da iyo kaamirooyin caadi oo la duuba ay soo qabteen ciidamada booliiska oo taagtaagaya raggii staafka ahaa ee la socday madaxweynaha hore Biixi. Somaliland oo arrinta war ka soo saarta waxay ku eedeysay Muuse Biixi inuu sameeyay laba qalad. Waa marka koobaad inuu san wargelin inuu safar yahayna uu soo ku wargelin ilaalada garoonka iyo dadka qaabilsan duulimaadyada ee xukuumadda cirra qaybta ka ah. iyo marka labaad oo ah inuu dad badan oo shacab ay daba lugeynayeen sida daraadeedna arrintaas loogu diiday arbushaaduna meesha ka dhalatay. labadaas ay qiil ka dhigteen. laakiin arrintan ayaa abuurtay kacdoon weyn iyadoo beesha uu ka dhashay Muuse Biixi ee Zubeer awal la yiraahdo ay kacdoon weyn sameeyeen heer xitaa odayaashoodii ay gaarsiiyeen arrinta in garxajis ay arrinta raalli ka yihiin oo dagaal ay u soo bareereen ah in Muuse Biixi iyo beeshiisa ay taataabtaan iyadoo odayaal kalena ay jawaabeen. xaaladda ayaana waji cusub yeelatay. hadda maxaa soo kordha marka wasiir hore Buuni oo qayb ka ahaa dadkii isoristaaga iyo arbushaada shalay kala kulmay madaarka diyaaradaha cigaal ee la socda Muuse Biixi ayaa wax kasta ka hadlay sidii wax u dhaceen wixii ay la kulmeen mowqifkii uu qaata Muuse Biixi iyo arrimo kale uu ka sheekeeyay. arrinta ugu weynsa waxa ay tahay inuu Muuse Biixi ku wargeliyay mas'uuliyiinta garoonka inuusan dib dambe uga soo degin garoonka diyaaradaha cigaal inta xukuumadda cirra ay joogto. haddaba Muuse Biixi halkee ayuu adeegsanayaa waxa uu maanta kadib sameey doonaa inuu ka soo dego dalka Itoobiya garoomada Itoobiya uu ka soo degayaa safar dhulka ah ayuuna ku soo galayaa deegaanada Somaliland. go'aankaas uu qaatay Buuni ayaa arrinta ka sheekeynaya isagaan isla daawanayna. anigu gaadhiga aan wadanay 3 qof ayaan ku saarnayn wana gaadhiga koobaad ee ciidanku qoryaha ku qabteen markay aniga ay arkeen ay ahayd. kadibna waxay yiraahdeen dhinaca u bax oo noqonaysa dhinaca waqooyiga markaad madaarka taagan tahay. wana afaafka hore wana dhigta koobaad in dadka shacbiga ay caadi u maraan iyadoo oo ciidanka joogayna uu ahaa ciidankii awal lagu yaqaanay madaarka aan ahayn ee ciidan cusub oo loo sii diyaariyay arrintan ahayd. hadduu maamuuskiisii ku heli waayo xabad marayso dee si aanay fidna u dhicin sidii shalayba halka uu ka sheegay dee sidii dadku kala badbaadayaan waa inuu dhulka ka soo galo dalka. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحكولا ورباهنيت كيغان ماتو كساب سيهي إنا كغاها الله ما دام بلو إلى دماد أن قوب جوغو وها دعددي شالي كدعدي مدارك عقال انترناشنال ايربورت ee caasimada jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa iyadoo oo shalay uu ka dhoofay halkaasi madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkaasina uu ku tagayay dalka isu taga Imaaraadka Carabta.
waxaanan dhowrayay oon sugayey inta xukuumaddu ay iyadu ka hadlayso arrintaasi. waxaa markaa aan maanta rabaa inaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan iyo dunidaba la wadaago safarka madaxweynaha, dhacdada dhacday iyo waxa la gudboon madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee talada haya. safarka madaxweynihii hore ee shanaad ee jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi safar caadiyu ahaa oo uu kaga baxayay dalka maalmo koobanna uu ku maqnaan doono dalka isutaga imaaraadka carabta. madaxweynaha siduu u baxayo iyo madaarka waxa uu kala kulmayaba dastuurkaa siiyey iyo xeerasha kale ee ka farcama. taasi waa taas. madaxweynihii shanaad xubno ka mida golihiisii wasiirada oo ka mid ahay, hoggaanka xisbiga kulmiye badh ka mida, xukuumaddiisii hore qaybaheegii kala duwanaa dad ka mida ayaa waxaanu gelbiska ka bilownay hoygiisa. dadka inta ugu badanna halkaa ayay ku hadheen markii ay madaxweynaha ay sii nabadgeliyeeyeen. tiro kooban oo wasiiradii hore ah iyo gaadiidkiisii isaga khaaska u ahaa ayaanu madaarka ku gelbinay, iyada oo guud ahaanna xukuumaddu ay warkaasi haysay, gudaha eerboodkana ay ka muuqatay diyaargalowgiisa halkaasi iyo ciidamadii meesha la geeyeyba. markii aanu magaalada ka dhammaanaynu afaafka hore ee cigaal international airport aanu gallay, halka dhigta koobaad ah markaan joogno anigu gaadhiga aan wadanay 3 qof ayaan ku saarnayn, waana gaadhiga koobaad ee ciidanku qoryaha ku qabteen markay aniga ay arkeen ayay ahayd. kadibna waxay idhahdeen dhinaca u bax oo noqonaysa dhinaca waqooyiga markaad madaarka taagan tahay, waana afaafka hore waana dhigta koobaad ee dadka shacbiga ay caadi u maraan, iyadoo oo ciidanka joogayna uu ahaa ciidankii awal lagu yaqaanay madaarka aan ahayn ee ciidan cusub oo loo sii diyaariyey arrintan ahayd. gaadhiga waxaanu ku saarnayn xildhibaan cabdulkariim oo ka mida golaha wakiilada, agaasimihii guud ee wasaaradaha arrimaha dibadda, qorshaynta, deegaanka, wasaarado fara badan soo maray aqoon-yahan maxamed ducaale. gaadhiga ciidanka waxaa isaguna soo istaagay ay saarnaayeen askarta madaxweynihii hore ee qaranku ku og yahay, ee ciidanka ilaalada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ka tirsan oo labisan. halkaa markay arkeen sida ka muuqata muuqaaladii warbaahinuhu duubeen kana soo bixi doonta cc kamarada madaarka haddii la eego, ciidamadii halkaa joogay ee booliiska ayaa xabadda furay. baabuurkaa ciidanku saaran yahayna la arkayo iyaga oo intay furaan gacan saaraya ilaaladii madaxweynihii hore, oo dhacdo cajiiba weeye. halkaa markay intaasi dhacday, isagoo arrimaha ciidamada aqoon u leh madaxweynihii hore, isagoo awaamirta ciidanka yaqaana, deg deg buu soo daadegay. waxaana uu u sheegay in ciidankiisu aanay qaadin wax falcelina, haddii ay tahay isagu inuu baabuurka ka dego oo amarkaa la bixiye inuu ka degayo, madaarkana uu sidaa ku galayo. tiina uu annagana noo sheegay inaanu noqonno, madaarkana uu sidaa ku galay, lugna uu ku galay, halkaasina uu tegey qolkii shacbi weynaha jamhuuriyaddu ka dhoofayeen isaga iyo caa'iladiisii la socotay. waxaa nasiib darro weyna qaabka uga falceliyey wasiirka wasaaradda duulista jamhuuriyadda somalilan fu'aad, oo dhacdadaasi majara habaabiyey, gebi ahaanteedba xaqiiqada wax ka fogna ku hadlay. raggaan ixtiraamu ku jiraa runtii, laakiin marka ay dhacdo waxa noocaasoo kale ah, waxa u habboonayd wasiirku inuu iska dhuunto oo aanu shaashadaha hor imanin. wasiirka waxaan u sheegayaa, mudane wasiir, intaasoo gebgeba intaad iska dayso, annaga iyo idinka waxa inoo dhexeeya waa kamarooyinka cc kamarada ee madaarka cigaal international airport ka xidhan. dhacdadanna waxay ka dhacday meel aanay dhacdaba ka dhicinoo waa dhigta koobaad ee madaarka ee shacbiga caadiga sida caadigaa u maraan. dhacdada munadamka ahayd ee diyaarsanayd eed ugu tala gasheen madaxweynihii hore waxay noo kala markhaati furaya siday wax u dhaceen. cc kamaradii madaarka ku taalay afaafkiisa hore
shacbiga u soo bandhig annaguna kalsooni baanu ku qabnaa waxaad qarinaysiin waa ceebta halkaa ka dhacday ciidanka furaya gaadhiga ciidankii madaxweynihii hore gacanta ula tegaya waxay samaynayaan aad arkaysa halkaa ka soo baxaya annaguna waanu haynaa intaasaa inoo kala markhaati furu iyadoonad war badanba gelin waxaa iyaguna hadlay ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan oo afhayeenkooga u hadlay qodob ku jiro maan isagana odhanayaa inaan kelmad ka idhaahdo waxaa hadalka afhayeenka ciidanka booliiska ku jirtay iyadoo halkaasi dad fara badan oo madaxweynihii hore sii galbinayey iyo ciidamadii ilaalinayay madaxweynihii hore iyo ciidanka booliiska isku dhaceen iyadana waxaan leeyahay warkii oo kooban siisii kamaradaha laga soo helo shacbiga madaxweyne muuse bixi daba guurayey ee ciidanka isku dhaceen iyadana intaa caddaynteeda siisii kamarada inoo dhexaysa keena haddaad intaa keeni weydaan dhacdada waad ku ceebaysan tihiin ceeb baanad qaranka u soo jiideen sharaf daraad u soo jiideen karaamad daraad dalka u soo jiideen haybaddii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilanna meel baad kaga dhacdeen madaxweyne muuse shalay madaxweynihii jamhuuriyaddu ahaa karaamuu lahaa maantana karaamuu leeyahay madaxweynayaashii ka sii horreeyeen inta nool karaamay leeyihiin ixtiraam bay leeyihiin madaxweynaha maanta joogaana xor muu naga mudan yahay oo magacaan ugu yeedhnaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda berri markuu ka degana maamuuskiisuu naga mudan yahay marnaba nagama geeyo wax xumaana hadduu joogay hadduu berri madaxweynihii hore noqdaba haddaba dhacdadan waa dhacdo runtii loogu sii talagalay madaxweynaha laakiin inay qaranka bahdilaysana ma ogeyn nimanka waxaasi samaynayey maantana natiijadeedii waad haysiin in shalay idaacadihii dunida ugu waaweynaa ee aljaziira ay ka hadlaysay ee carabiya ka hadlaysay waxaasoo dhan maanta ceebteedu idinkayna dul taallaa maanta nin wasiirana kuma eedaysna nin ciidanina kuma eedaysna marka waxaa maanta ceebteed u soo jiideen waa madaxweynihii jamhuuriyadda cabdiraxmaan waxa maanta dalkaa wanaag ka dhacana sharafkeega isagaa leh waxa ka dhaca xumaanna ciddii doontaaba ha samaysa isagaa leh maxaan haddaba u soo jeedinayaa madaxweyne muuse biixi cabdi oo madaxweynihii xilka kugu wareejiyey alxamdu lilah waana madaxweynaha keli haatee maanta inta nool isagiiyo daahir rayaale dalka jooga waa madaxweynaha koobaad ee xisbigiisii xisbi mucaarada uu yahay ee soo baxay odaygiisiina ah halka dalkuna kula jooga si wanaagsanna waad isku garanaysiin da ahaan aqoon ahaan iyo laba madaxweyne xilka isku wareejiyeyba maxaad u door bidaysaa in adiga madaxweyne muuse laynagu kala dhex jiro maxaad u door bidaysaa ceebta wasiiradaadu sameeyaan in adiga ay ku imanayso dhacdadan waxaa jirta dhacdo ka sii horreysay oo maalintii hore madaxweynuhu baxay maalintii uu soo degayeyna sharafteeda iyo sidii u maamulayba uu iska leeyahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdalla sandheere waxaana filayaa maanta hadduuna saylac ku maqnaan lahayn inay arrintaasi aanay dhacdeen ninka doonaya wasiira ninka doonaya ee wasiir ka hooseeya ee doonaya inuu adiga iyo madaxweyne muuse inagu kala dhex jiro adaa suulin kara ee suuli maantana sida uu wasiirka shalay u sheegay madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda somalilan haddii culaysina haysta buuri dee safaradaydu waba iska kooban yihiina sanadkiiba mar baan baxaaye muddo xileedkiina inii hadhay waxaan ka soo degi doonaa on ka dhoofi doonaa madaarada dalka etoobiya nuuco u ekaanaysaa maanta inaad adiguna madaxweynaha daanta aad kaga noolaato dalka madaxweyne muusena galbeed ka soo dego nuucay u ekaanaysaa qaranku nuuc sawir nuuceyu noqonayaa waxaasi si aanay u dhicin waxaan kuu soo jeedinayaa hal tale madaxweyne intuu maanta safarkaa ku jiro la hadal telefoonkula hadal ka wada hadla dhacdada ka wada hadla sida dambeed u wada xidhiidhaysaan xidhiidhkiinu joogto ha ahaado nimanka kuugu soo dhowaanaya in madaxweyne muuse biixi ay kaaga keenaan waxaan kufkiisa ahaynna adigaa suulin kare suuli una diyaari sidii xukuumaddayadii hore aanu yeeli jirnay wasiiro iyo dad siiyaha maamuuskiisa oo markuu soo laabanayana siiya maamuuskiisa kana jooji inuu dalka etoobiya ka soo dego arrintaas mas-uuliyaddeeda aday ku saarantay waa qaybin bay noo horseedaysaa waxay noo horseedaysaa karaama daro waayo hadduu maamuuskiisii ku heli waayo xabad marayso dee si aanay fidna u dhicin sidii shalayba halkaa uu ka sheegay
dee sidai dadku u kala badbaadayaan waa inuu dhulka ka soo galo dalka taasay noqonaysaa xataa ma filaya inay fariinta noocaasa wasiiradaada ku soo gaadhsiinayaan waxaan kuu sheegayaa madaxweyne adiyo madaxweyne muuse yaan laynii dhexaynin arrimo badan oo laguu keenay oo madaxweyne muuse nowdgaraystay baa jirto oo dhacdooyin oo bilahan u dambeeya dhacay dad shiraya oo lagu idhaahdo madaxweyne muuse shirinaya ka joojiyo deegaanadooda iyo xisbigoogii ka shiraya oo aad joojisay maxaa kugu kalifaya hawsha qaranka kuu taalla ayaa ka badane maxaa madaxweyne muuse oo oday qaran oo aqalkiisa iska jooga iyo xisbigiisa maxaa loogu mashquulayaa waxaad ku kala badbaadaysaan adiga madaxweyne muuse waa inu xidhiidhkiinu joogto ahaado aan laynii dhexaynin wasiirada kula joogaanaynii dhexaynin annagoo wasiiradiisii horeo la joognaanaynii dhexaynin hawshaa sidaad u suulinaysa madaxweyne aday kuu taallaa dhacdadaan isticfaaf ka bixi madaxweynahaana la hadal yaanay suurto gelin inuu safarkiisaasi dalka etoobiya ka soo galo oo uu dhulka soo maro marka uu ka soo baxo xuduudka etoobiya shacbiga jamhuuriyadda somalilan waa naga mahad celinaya laakiin waxaan leeyahay dhacdadaasi intaa inoogu joogto midnimo iyo wadajir baa inoo ballana waxaan dhacayna waxaan hubaa inay tale madaxweynaha maanta xilka haya cabdiraxmaanna ka soo bixin laakiin dad isla cimri dheerar iyo madaxweyne aad ugu dhowaataan sharaf darro madaxweyne looguma dhowaado madaxweynihiina inaad muuse karaamaysaan baad ugu dhowaanaysaan waayo karaamada muuse u korodha waxa libinteeda iyo sharafkeega yeelanaya madaxweyne cabdiraxmaan taasu waa taa haddaba go-aankan wuxuu ka dhigan yahay in muuse biixi oo madaxweynihii hadda talada wareejiyey dhowr bilood ka hor somalilan in maanta uu go-aankaas qaatay kadib dhibaatooyin badan oo uu tabanayo adiga maxay kula tahay noo reeb aragtidaada dhinaca kale wasiirka beeraha soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeye oo nin ka soo jeeda deegaanada somalilan ayaa waryaab leh ka soo saaray xaaladda ka taagan somalilan mareeye ayaa sheegay inaysan ka fursanayn markii uu indheeyay xaaladda somalilan inuu isagu baxo ee tago si uu arrinta xal ugu raadiyo su-aashu waxay tahay mareeye ma tegi karaa halkaas isagoo ah wasiirka beeraha soomaaliya wuxuu yidhi mareeye qoraalkan soo saaray 4 arrimood oo Hargeysa iyo Somaliland muddo sanooyin ah ka dhex socda ayaa iga yaabiyay siday u sii shaqay karaan. 1 tala xumo time dhaaftay oo aan cid dib u qiimaysa lahayn. 2 qof mas'uuliyad sheeganaya oo isaga hadlaya af xumo aan loo meel dayin badiil siyaasadeed lahayn oo dadkii nabadda ka kaxeeyay colaadna wax aan ugu tarin. 3 odayaal koofiya xunxun oo jifo qabiil sheeganaya oo saf ku jira oo isugu jiibinaya colaad iyo cay ku wajahan dawladda iyo jufo kale oo Hargeysa ay wada degaan oo cid wax ka qabanaysa oo xirxiraysa aan lahayn. malaha hadalkan wuxuu uga jeedaa beesha Muuse Biixi oo saf soo gashay shalay isla markaana garxajis dusha u saarta wixii dhacay oo dhan oo yiri dagaalad noo iclaamiseen. wuxuu yiri 4 siyaasad foorarta oo xifaaltanka Hargeysa ku filan laakiin aan fahmi karin waxa ka socda gobolada ku wareegsan geeska Afrika iyo caalamka iyo 30 sano oo been cad la isu sheegayo oo nin war ka daaya dhahaya aan lahayn. ogaada haddaan si degdeg ah rag taliya loo helin hadda ka fursan mayso in aan anigu tago oo dadka iyo meel u toojiyo yani haddii xaaladda sidaan ay sii ahaato ka fursan mayso inaan aniga tago ayuu leeyahay wasiir Mareeye. wasiiro ma tagi kartaa meeshaan ama adii xabsi lagu dhigaa maadaama meesha dadka taga ee ka soo jeeda ama yani nin xil ka haya dawladda federaalka Soomaaliya inuu halka taga ay safududeen. haddaba aragtidaadu maxay tahay go'aanka uu qaata Muuse Biixi ee inuu kansalay inuu dib dambe u tago garoonkaas ka soo dago inta cirra xukunka haayo maxay ka dhigan tahay xaaladda guud ee Somaliland sidee ay kula muuqataa noo reeb aragtidaada fariintan meel dheer gaarsii halkan ku soo bir.